بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaa idinka digayaa xaasidnimada culumadeena ayaa noo fasirtay xaasidku qofku yahay waxay yiraahdeen xaasidnimadu karaahatu nicma wa hubbu zawaliha cinda almun'ami calayh karaahatu nicma nicmad aad karahsanaysa weey وحب زوالها وحادنا جعشها إن لغزوليو عند المنعم عليه متك اللون معي إلهي بأولاد سيي إلهي بعلم سيي إلهي بأدون سيي وحال الله قفك هلاقا قاضبا أنا يا أيو سوريجي وحان ياك قاضني وركنكم مو وناك سنة بوس كذي معها بوس كذي لما نقل إلهي تقولها يستوى سبحانه وتعالى مدى من بنانا حصيشة وحاب بنان الغبضة كما شو qofkan waxaa la siiyey awlaad cilmi maal xaas wanaagsan waxaa tirahday ilaahu anna ninkaa waxaa siisay ilaahu anna isii middan way bannaan tahay u fiirso wax yaroo farqa u dhexeeya tii hore oo aad lahayd yaa ka qaada haddii qofkan kama qaadi kartid ilaahay nimcooyinkiisa uu addoommada uu siinayo haddii qofka qaadi kara ma leh ilaahay waxa uu u diido addoommadiisana cid siin karta ma leh hadda farta aan hasaan u dhaqaajinay hadduu ilaahay subxaana watacaala iqalajiyo subxaana allah adduunkoo dhan hadday isku yimaadaan ma awoodaan inay fartaa ay sidaa u dhaqaajaysiiyaan alxamdulilah ilaahay marka addoommadiisa wuxuu uu siiyo cid ka qaadi karta ma leh wuxuu u diidana cid siin karta ma leh maxaa ka xasdi marka ilaahay maad wax weydiisatid maxaad qofka uga xasday xaasidnimadu waxay ka mid tahay dunuubta kuwooda ugu waaweyn qofka hadduu xasid yahay waxaa laga helay sifo ka mid ah sifaadka yahuudda liqowlihi tacaalaa wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq ilahi wuxuu leeyahay waxay jecel yihiin ahli kitaabka in badan saxaabooy inaad ku laabataan gaalnimadiinnii yahuudda waxay jecel yihiin low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara gaalnimo ayay doonayaan inaad ku noqotaan oo maxay u doonayaan inaan gaalo noqono xasadan xaasidnimo u geysay min bacdi maa tabayana lahum alxaq waxay xasdeen markuu xaqi u caddaaday markay ogaadeen yahuudda in saxaabadan ay haystaan diin sax inay janno geli doonaan maxay dadkaa muslimiin u yihiin maxay ay u gelayaan janno anaga naar u gelaynaa xaasidnimo u geysay sifo ka mid a sifaadka yahuudda ayaaba laga helayba haddaad tahay qof xasada kaaga sii daran nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yajtamicaani qof addoona kuma kulmayaan laba shay aliimaanu waalxasad qofka inuu yahay qof xaasida iimaanna uu leeyahay lagama yaabuu leeyay nabiga sala allahu alay wasalam haddaad tahay qof xasida iimaanba malhid haddii waxaa jannada lagu galna waa iimaan war qofka xaasidow alla maxaa hoogtay xadiidkanaa kugu filanba xaasidnimo oo dhanba xadiidkana kaa filan haddaad tahay xasid iimaan ma lihid haye marka inaad iska dayso oo arrintaa aad ka tala baxda weeye nabiga sal ly slam xadiid kale wuxuu leeyahay dabbi ilaykum daa lama qablo ummadii idinka hore waxaa halaagay xaasidnimo ayaa halaagtay ma dhahayo xaasidnimadu tintay xiirtaa hase yeeshee diintay ay xiirtaa oo jirid goysaa xaasidnimo meelay taallo adeerow diin ma taallo diin ma taallo xadiid kale nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay laa yazaalu nnaasu bikhayri maa lam yataxasadu dadka intaynan isxasdin khayr ka zuuli maayaan dadka intaynan isxasdaynin khayr kama zuulayaan hebel ayaa caruur loo dhalay maa shaa allah hebela ilaahi subxaanahu wa tacaala arrintaa ku guulaysiiyey maa shaa allah beertiisaya u baxday maa shaa allah dadku khayr kama zuulayaan inta aynan isxasdin walmacna alxadiidna waxaa waaye idaa taxaasaduu hadday isxasdaan dahaba canhum alkhayr khayrkaa ka tegi ataahum ashar sharkaa u iman wallahi xadiidkan xadiid cajiib weeye am yaxsuduuna annaasa qaala allahu tacaala am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih dadkumu waxay ku xasdi waxa uu ilaahay siiyo fadliya oo dheeraada ilaahay siiyey maxaad uga xasdisaa marka
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ولله سبحانه وتعالى آياتك نلشودي وقيبيي محاد أوغا حسدي إلهي سبحانه وتعالى آيات دومديسا waxaan siiyay ilaahayga siiyay weydiiso iska daa xasidnimada xasan albasri wuxuu yiri wiilkaygiiyo iska ilaali xasidnimada waayo way ka muuqanaysaa inta aysan ka muuqan cadowgaaga qofkan aad xasdaysa intaysan ka muuqanin adiga ka muuqan oo qofka xaasidka ah dhibaatooyinka weyn oo haysta waxaa ka mid ah alham walxasan murugo joogta ah iyo walwal joogta haysta وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا إلهي سبحانه وتعالى هبين كستأيو سودقا أدومدي سأيون فلدقي سكوما نيستا marka mid kasto Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyo fadligiisa hadaad xasado hada dib oo dhan aduu ku laabay caasintii ugu horeysay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala la caasiyo xasidnimo ahayd ya xasidnimo ahayd marka dhalinyaroy xasidnimadu axaadiisaasi aayadahaas waad maqasheen حاسد هذا هاي ولقى ميل مقاريسد يا ولقى هي ميل مقاريسد بالفيري كل جوجو حاسدين تويجران بالأك ولقوا ميل مقاريان إلهي سبحانه وتعالى أي كلها يستنى معين كيسة محقفك إلهي وسواني سينوا إلهي هذا سبحانه وتعالى الله دودي سابع حاسد لماذا جوج ميل مقاريسد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته